arrinta galmudug waxa aanu ku talinay in dib u heshiisiin laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yiraahdaa extension ama waqti kororsi waxaanu ku niri waqti kororsi waxa weeye waxa ka horeeya horta process in la maro dawlad goboleedka kulli waan ugu raaceen madaxweynaha dawlad goboleedka galmudugna waan ugu raacay laakiin markii uu tashi galiyay waa isbedelay annagu ujeedadeen waxay ahayd process in la geliyo dib u heshiisiin laga bilaabo kadibna doorasho loo gudbo runtii annagu waa isku daynay in aan si kasta aan u muujinno inaan diyaar u nahay wada shaqayn iyo iskaashi sax ah sidaad og tihiin wax yar kaftanaan ku darsadeen sidaad og tihiin qofku hadduu xanuunsan yahay 3 process yuu maraa 3 phases 3 waji yuu maraa waji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay oo cisbitaalka aado oo lugihiisa ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yiraahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado stage-ka labaad ama wajiga labaad waa in la fiiriyo xaaladiisa cudurku qabo iyo xaaladda uu ku jiro sidee u xuntahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa la yiraahdaa qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxa loo qoraa daawo ama prescription ayaa loo qoraa arrinta galmudug markaan ka hadlo arrimaha kale gaar weeye waa aragnay dhibka jira waa dhagaysanay diagnosis yaa sameynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshiisiin loo sameeyo ka bacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan marka hadda choice-ku qofku markuu meel yimaado uu yiraahdo waa xanuunsanahay la ogaado oo daawada la siiyo choice-ka isaga askale inuu qaato daawada inuu diido laakiin haddii la yiri galmudug lama xalin waa la xaliyay laakiin waqti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer mudug iyagu inay ka gaaraan go'aanka inay ka gaaraan oo ay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo